dhawaqa rasaasta ka dhacaysa gudaha maqaayadda Pizza House. Faahfaahinta weerarkaasina goordhow ayaad maqli doontaa. sidii aad warkaba ku maqlayseen iska horimaadkii u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab ayaa wali ka socda maqaayadda Pizza House waxaana gudaha ku jira oo maleeshiyada al-shabaab haatan dagaal kula jiray ciidamada gaashaan. weerarkan ayaa bilowday wax yar ka hor 8:30 daqiiqo 8:30 fiidnimo ee xalay kadib markii baabuur uu ku hor qarxay laba maqaayadood oo lagu kala magacaabo Pizza House iyo Posh Streets oo iska soo horjeeda. qaraxa kadib ayaa la sheegay in maleeshiya hubeysan ay gudaha u galeen maqaayadda Pizza House waxaana halkaas ka bilowday dagaal adag oo saacado qaatay. Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdi oo darawal ka ah mid kamid ah ambalaasyada Amiin Ambulance ayaa waxa uu Haruun Macruuf uu goordhoweed uga warramay xaaladda goobta xilli ay rasaas badan ka dhaceysay goobta la isku horfadhiyay. waxaan ku suganahay abu goobta qaraxa ka dhacay oo ilaa hadda dagaal ka socdo ku suganahay. halkee buu dagaal ka socdaa? abu wuxuu ka socdaa Pizza House hotel la yiraahdo oo ku yaalo deegaanka degmada Hodan ee Brand Reeriyo. waa gartay maxaad aragtay markii ugu horeysay maanta meesha tagtay maxaad aragtay? wallahi markii ugu horeysay aan dhibka badnaayay dhaawacay ahaayeen dhaawacay ugu tirada badneed 24 qofood ahaayeen saddex dhimasho inta aragnay dhimasho inkastoo meedka la yaalin. halkeed geyseen? waxaan geynay sababana geynay dadka mugtaay qofka istaalka rabo oo sheegana haloo geeya madiino meesha aad way ka soko dadka dhimashada qaadeen meesha aad joogtaan dad kale oo ku dhinto dheeraada ma jiraan? waa jiraan ilaa hadda goobta waxa yaala meedid waana xabada ka socoto meesha mana gali karno aantii soo u dhownahay xabada ilaa hadda waa maqlaysaa umaleena inay yeerayaan. waan maqlayaa ilaa hadda meesha xabada ka socoto laakiin goobta meedid way yaalin hotelka aridiis iyo jidka meedid way yaalin. dad meesha laga soo badbaadiyay ma aragtay? waa arag markii ugu dambeysay hadda aan baxay dagaalkan oo kadib maral ka baxay hawdi yeertay bambooyin waxba yeeri sidaan u soo gurmaday hadana meesha uu maaday inta bixin ka hor markaan baxay qof shan qofood aan qaaday oo dhaawac oo meesha ka soo baxay ka soo orday. ma wareysatay maxay ku sheegeen? wallahi waxay ii sheegeen ilaa hadda meesha dad ku jiraan la yiri mishii qaarkood waa shoogsanayeen kuwa qaar waxay dheen meesha dad ku jireen waa jabshiin dadka ma soo bixi karaan inta akaran. inteed u jirtaan idinka meesha xabadu ka dhacayso? wallahi hadda aniga wax talaabo ii jirto adiga 10 talaabo kale ii jirta meesha oo muuqda marka idinku maxaad sugaysaan? anaga waxaan sugaynaa hotelka dad inay ku hareen oo aan fiirinayno iimaylka asturada oo isbitaalada aan geeyno iyo hotelkan dad ku jiraan la sheegay oo jaban oo ilaa hadda soo bixila. marka idinku ilaa intee leeg baad sii joogaysaan meesha goormaad hooyanaysaan? wallahi ma hooyi karno waa meesha dib ka jiro anaga inta fursad aan ku weeyno aan ku baxno maanta awood aan ku baxno wadaas ilaahay aan gargaareena waa hadda aan ku baxno ma jirto waa dad dhibaataysan meeda yaalo dhaawacyo yaalo ma hooyi karno waa ambalaas kale ma shaqeynaa meesha aamin ambalaas aan u jeedin hadda oo shaqeynaa. Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdi oo kamid ah darawalada ambalaasyada Amiin Ambulance oo ii warramay goordhoweyd isagoo ku sugan afaafka hore ee maqaayadda Pizza House oo uu dagaal ka socdo. waxaa haddaba isla goobtaasi ku sugan wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir xaaladdu waa sidee? Haroon xaaladdu wari waa deganaansho la'aan waxaana wali xabada ka dhacayaan gudaha maqaayadda Pizza House oo xalay fiidkii qaraxiyo ay ka dhaceen kadibna gudaha u galeen rag ka tirsan al-shabaab. xabada goos ayaa la maqlayaa saraakiisha amnigana waxay sheegayaan ilaa hadda in howlgalka uu soo afmeerimin oo ciidamadii gaarka ahaa ee gaashaan ay hadda gudaha ugu jiraan maqaaxida isla markaana ragkii ka tirsanaa al-shabaab gudaha u gala weli iyo ciidamadu ay risaas ku wadaagsanayaan ilaa hadda oo weli meesha howlgal ay ka socdaan. ciidamadu ma ka hadleen dadka ay waajahan la dagaalamayaan iyo xududooda intay la eg tahay iyo howlgalkan muddada ay sii wadayaan ma ka hadleen? ciidamada sida gaarka u tababaran ee gaashaan ee ku jira gudaha maqaaxida Pizza House ee dagaalka kula jira raggan aan tiradooda ilaa hadda hay'adaha amnigu ay sheegeen xiriirkooda iyo wararka la xiriira waa mid aad u kooban oo yar marka laga reebo saraakiisha amniga
iyagu banaanka jooga waxaana laga warsugayaa waqtiga ciidamada gaashaan ee iyagu sheegaan soo gabagabeynta howlgalkooda oo xalay fiidkii ilaa iyo hadda risaafta ka dhacaysa gudaha ciidamadan gaashaan inta badan warbaahinta xogo badan ma siiyaan marka laga reebo saraakiisha afeedadooda marka way adag tahay xogta waxa ka socda gudaha maqaaxida ilaa iyo hadda risaas way ka dhacayso marka aad bay u adag tahay in la helo xogta la xiriirta khasaaraha saraakiisha amniga oo saakay iyo waqti dhaxo xalay la hadlayna waxay xaqiijinayaan geeridu ilaa iyo 15 ruux ilaa iyo 16 oo la xariir dad geeriyooda ah dadka intooda badan banaanka ayay bad horeba yaaleen oo media markaan meesha tagnaa arkeenay gudaha dadka ka soo kordhay dhimashadu waa 15 ilaa iyo 16 waa gartay bal waxaad wax yar dadweynaha u sawirtaa meesha aad joogteed ku sugan tahay iyo labadan maqaayadood oo la weeraray halkay ku kala yaalaan midda hadda xabadu ka socoto iyo waxa ka dhacay Bosh Street iyadana labadan maqaaxi waxay ku yaalaan meel cabir ahaan marka laga hadlayo kilometer 6 ah aadna ugu dhow dhinacan banaadir bay ka dhowdahay waxay wada hormarta wasaaradda arrimaha dibadda gasho oo ka leexata inta u dhaxay kilometer 6 marka la soo dhaafo kilometer 5 ama soobe ay ku yaalaan maqaaxiyahan waa laba maqaaxi oo iska soo horjeeda oo lagu kala magacaabo Pizza House iyo Bosh xalay markii hore weerarka waxa la tabinayay al-shabaab ay sheegeen in Bosh ay galeen laakiin markii dambe meesha la tagay qaraxyadu inkastoo labada dhal bay aad u saameeyeen oo jug xoogan ay soo gaartay qasaarada bishii dhaawac uu ka dhashay labada maqaaxi haddana marka laga hadlayo in gudaha loo galay waxay gudaha u galeen halka loo yaqaan Pizza House oo hadda xabadu ka dhacaysa Harun marka labada maqaaxi way iska soo horjeedaan wada yar baa u dhaxayso waa qaraxna marka hore uu saameeyay labadooda risaas soo bashay ka dhacaysana waa halka loo yaqaan Pizza House aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana nooga waramayay xaaladda soo horfadhiga ee u dhaxaysa maleeshiyada ururka al-shabaab iyo ciidamada amniga Soomaaliya oo wali aan gacanta si buuxda ugu wada dhigin maqaayadaasi Pizza House ee ku taala degmada Hodan magaalada Muqdisho 16 qof ayaa ku dhintay ugu yaraan 26 kalena way ku dhaawacmeen